ciidamada booliiska ee Somaliland ayaa xabsiga u taxaabay maamulka ku-xigeenka dugsiga Nuuraddiin ee magaalada Hargeysa qaybtiisa inamada Axmed Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Siraanyo waxaana muwaadinkani loo xidhay inuu la magac yahay madaxweyne Siraanyo haddaba arrintaasi waxaa ka hadlay maamulaha guud ee dugsiyada Nuuraddiin Mahad Ibraahim Maxamed oo ka sheekeeyay sheekadaasi iyo waliba sidii ay u dhacday ninka la xidhay maaha macallin oo kaliya waxa weeyaan maamulka ku-xigeenka iskuulka sare ama dugsiga sare ee inamada magaciisana waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Maxamuud ilaa iyo yaraantiisina waxa la oran jiray Siilaanyo oo markay saddexdii magac madaxweynaha iskaga ekaadeen xilliyadii qaxoontiyada aynu joognay madaxweynaheena maanta gudoomiyaha SNM oo ahaa kalgacal iyo jacayl la jecel yahay ayaa loogu bixiyay naanaystaasi laakiinse magaciisu waa Axmed Maxamed Maxamuud waana maamulka ku-xigeenka iskuulka sare ee inamada marka ninkaasi runtii waanu ka xunnahay shalayto subaxnimadii xilligii daabuurka ama safka ardaydu galayeen ayaa isagoo iskuulka jooga oo ardaydiisii maamulaya ayaa loo yeedhay iyadoo buuq iyo qaylo iyo waxba dhicin buu si sharaf leh u soo raacay dabadna ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa yiri waxaanu kugu haysanaa xarigaas waxaanu ku eedeeyeen in uu magaca madaxweynaha foojari gareeyay runtiina magacu waa magaciisii magacan naanaysta ana ilaa iyo ciyaalnimo waa la odhan jiray annagana wuxuu noo yimi oo iminka dhowr iyo 10 sannadood oo nala shaqaynayay oo ahaa magacaas ayuu sitay madaxweyne ninka macallinka ah maamulka ku-xigeenka iskuulka ah 2700 oo arday oo inama ah u maamula ah waxa magaca loo bixiyay isagoo da'yar waxana loogu bixiyay kalgacaylkaaga iyo jacayl adiga lagu jecel yahay ayaa magacaagii loogu bixiyay magaca muu foojari gareynaynin wax qaldan kumuu samaynin ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayuu u diray saad sida ay noo sheegeen ganaax dabadeedna magacii bay arkeen magacii markay arkeenna way ku oogeen oo way ku soo xidheen gudoomiyaha guddida magaranaysa waalidiinta ee iskuullada Nuuraddiin Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud ayaa damaanad markaasi warqadda iminka aan hayo oo warqaddii maxkamadda ah ayuu u tegayo wuxuu yidhi ninkaasi waanu xanuunsanayaa dhabarka ayaa jug culus ka gaadhay bari dhexdii ahayd halaysii daayo damaanad hana lagu siiyo damaanadii maxkamadda oo taa aan hortiina ku haya ana waxa la yidhi waxa ka qaatay raacfaan ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa ka qaatay raacfaan isla iyo minidkiiba marka manay ahayn runtii xukun waxa halkan ku qoran qaraar damaanad ku siideyn garsuge Axmed Maxamed Maxamuud ina Xabiiba Haybe ayaa ku qoran marka may ahayn wax go'aan laga qaatay waxay ahayd in uu gartiisa garsuge ahaado waana maxkamaddii sharciga ahayd iyo garsoorkii dalka dabadeedna runtii arrintaasi ayaa iyaduna maanta dhacday maamulayn sida caadada Somaliland la yaqaano marka arrin meel ka dhaco ama dawladdu cid xidhato waxa timaada cid waxa ka hadasha dawladdu saameyn ba ku yeelataa arrinkana hadda ka hadlaysaa in dugsigaaga dhinaca dawladda saameyn kaga yeesho ma laga yaabaa wallahi dawladdu waa dawladdeedii waxaan khayr iyo wanaag ahayna anagu ma ogin siyaasiyiinna ma nihin dad microphone taaganna ma nihin anagoo awlaad iyo arday baan wax barnaa waxaanuna ka hadlaynaa waa maamulihii iskuulka inamada ee secondary schoolska oo la xidhay weeyaan wax kale ceebihi ma jirto dawladdana xumaan iyo mushkiladii annagu ilaa siyaasi ma nihin mucaaradna ma nihin waxaanu nahay raaciyadii dadka iyo macallimiintii iyo ciruurta dadkii wax u dhigayay ma aha nolosheenoo dhani inay siyaasad ku meeraysato kale Cabdilaahi Fadal Iimaan taliyaha guud ee ciidamada booliiska oo warbaahintu wax ka weydiisay ee la xidhiidha macallinkaasi iyo waliba sababta loo xidhay waxa uu taliyuhu ku dooday markii magaca Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo booliisku ay baarisa bilaabeen isla markiiba uu bedelay wuxuu ku bedelay wax la yiraahdo xaddi sakali halka wax soo gashay wax sheegasho magacaan lahayn ilaa sabab qirey markii hore Siraanyo lahaa imika inuu xaddi sheegtay marka sheegasho magaca aan waxaan ahayn waayo kan in saacad gudahood ku bedelay markii uu ogaaday in booliisku daba socdaan taaytaas ka jawaabay